بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يعني laga hela kamidin marka baamiyaha qofka odayga ah ama se waayilka ah iyo ninka yar labada waxa weeyaan isku si ay wax u taraan insha Allah marka waxa weey baamiyaha fawaaidisa fawaaid la soo koobi kar ma aha in oo maxaan ku raadaay had iyo goor la laazimana aadi fawaaid fara badan ay u leeyahay bini aadanka fawaaidisa waxa la yiraahdaa dhinaca la yiraahdo ilmaha oo kale kursiimo oo dhaqso ah ay u leeyahay ayagoo banaanka joogay ayuu ur ku jir ah markii la yiraahdo hooyada oo xaamalada ah midalan in ay aad inay u basato waxa way laga maarmaan ay tahay marka geedkaasi fawaaidisa waxa weeyaan macaadin fara badan ayaa Ilaahay dhaxal dhigay vitamins fara badan ayaa Ilaahay dhaxal dhigay waxa la yiraahdaa dhinaca la yiraahdo calool fadhiga waa aad iyo aad ugu roon yahay ma aha marka baamiya marka soo qaad midalan شيء wuxuu kamid yahay loo badsado wax la indaajadka ama waxyaalaha oo isla markii wax bisleeyo ay kamid yihiin marka waxa weey waxa la soo sheega dhiigkarka inuu roon yahay waxa la sheegaa maxaan ku radaa cholesterol inuu baabiyo waxa la sheegaa in oo maxaan ku radaa wax la yiraahdo sonkorta u roon tahay yani baabiyo ka daar dawo ahaan waxyaalaha aan xusi karno oo leeyahay waxyaalaha aan ka baarnay waxa kamid ah sonkorta dib loo abuuro geedkaasi fawaaid fara badan ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaxal dhigay waxa lagu tilmaamaa geedaha geedba macnaha qayb ayuu aad iyo aad ugu sareeyaa sida mataqana luzuujaadka wax la yiraahdo ama dhareertada ama dhareerka xaqiisa dadka ka dhamaaday maxaan ku raadsaa sida jilbihii iyo maxaan ku raadsaa laalaabatidii oo kale iyo maxaan ku raadsaa oo u baahan in ay garaasa mise wax la yiraahdo saabuniyad ee bil caafimaad markii looga hadlayo